lowska iyo faa'iidadiisa fadlan hada youtube-kana barteen caafimaadka aad ku cusubtahay subscribe saar siina share gare muuqaalkan. Lowska wuxuu faa'iidooyin badan u leeyahay jirka bini'aadamka. Waxaan halkan idinku soo gudbi doonaa faa'iidooyin lagu xaqiijiyay cilmi baarisyaal kala duwan oo la sameeyay. Wadnaha lowska waxaa ku jira saliid aan cufnayn taasoo faa'iido u leh wadnaha. Wuxuu lowska la dagaalamaa cudurka kolestaroolka oo ah subag fadhiista xididdada wadnaha, taasoo ka hortag u ah xanuunka wadna qabadka iyo faaliga ama istaroogga waxa loo yaqaano. Macaanka daraasad mar dhow la sameeyay waxaa lagu ogaaday in lowska uu yareeyo boqolkiiba 21 halista macaanka. Sababtan waxaa lagu sheegay inay tahay maado ku jirta lowska oo loo yaqaano manganese, taasoo muhiim u ah kontaroolka sokorta jirka. Dhagxaha xamiitida fadhiista cunista lowska wuxuu ka hortag u yahay dhagxaanta ku samaysma xamiitida, taasoo badanaa la burburiyo ama xamiitida laga saaro. Kansarka lowska waxaa ka buuxa maado loo yaqaano beta sitosterol. Waxay maadadan ka hortag u tahay ama ka hortag ku samaysaa burooyinka, waxayna xakamaysaa koriimadooda. Daraasad lagu sameeyay dalka Mareykanka waxaa lagu arkay dad lowska cuna usbuucii 2 jeer ugu yaraan in ay 58% uu yareeyo halista kansarka ku dhaca malawadka. Xasuusta lowska wuxuu ka mid yahay cunnooyinka loo yaqaano brain food sababtoo ah waxaa ku jira fitamiin B3 loona yaqaano niacin, kaasoo kobciya shaqada maskaxda sarana u qaada xasuusta. Waxaa kaloo lowska ku jira maado loo yaqaano resveratrol, kaasoo 30% siyaadisa qulqulka dhiigga ee maskaxda, taasoo muhiim u ah firfircoonida maskaxda. Niyad jabka lowska waxaa ku jira borotiin loo yaqaano tryptophan, kaasoo ka qayb qaata soo saarista maado kale loo yaqaano ama lagu magacaabo serotonin oo muhiim u ah la dagaalanka niyad jabka iyo diiqada. Wuxuuna lowska u shaqeeyaa sida qaar ka mid ah daawooyinka lagula tacaalo niyad jabka ama antidepressant drugs. Uurka lowska wuxuu muhiim u yahay hooyada uurka leh maxaa yeelay waxa ay ka helaysaa maado folic acid oo hooyooyinka lagula dardaarmo inay cunaan markay uurka leeyihiin. Wuxuuna muhiim u yahay koriimada uurjiifka sida lagu arkay dhowr daraasadood oo lagu sameeyay hooyooyinka lowska cuna. Waxaa kaloo la arkay 70% inay ka badbaadaan caruur ku dhalata cilladaha dhabarka ama dhabar furanka loo yaqaano. Koriimada carruurta lowska wuxuu muhiim u yahay lafaha iyo murqaha carruurta koraya maadaama ay ka buuxaan borotiinno kala duwan. Waana sababta lagu dardaarmo ama lagula taliyo in carruurta cuna ahaan loo siiyo lowska ama loo shiido ama haddii kaleta laga dhigo dhiiqo si cunuga uu u cuno. Cayilka lowska wuxuu ka mid yahay cunnooyinka lagu dhargo oo leh high satiety food, sidaa darteed qofka joogto u cuna badanaa dhaqsa ma cayilo. Maqaarka lowska wuxuu muhiim u yahay maqaarka wuxuuna yareeyaa laalaabka maqaarka sababtuna waa fitamiinka C iyo E ee ku jira ama ka buuxa lowska, taas iyadana muhiim u ah qashin saarka. Tinta lowska wuxuu xoojiyaa tinta, sidaa darteed wuxuu ka hortagaa ama ka hortag u yahay daadashada tinta iyo bidaarta ragga nooca ka dhalata cillada hormoonka. Nafaqada lowska waxaa ku jira macaadin iyo fitamiino kala duwan oo jirka bini'aadamka faa'iido ugu jirta. Qofka wuxuu ka helaa tamar badan. Fg isticmaalka siyaadada ah ee lowska wuxuu dadka qaar u keenaa xanuunka gaaska ama laabjeexa. Dadka qaarna waxay ku yihiin allergic, taasoo halis gelin karta nolosha qofka.
haddii aad xasaasiyad ku qabto lowska fadlan ka fogow isticmaalkiisa haddii aad xasaasiyad ku qabtid caanaha hilibka digaaga iyo waxay u badan tahay in aad xasaasiyad ku qabtid lowska iska ilaali waxaad kaloo ka fogaataa lowska duqoobay ama raagay ama muddo la kaydiyay sababtoo ah waxaa lowskaasi ku dhasha jeermiska loo yaqaano Aspergillus flavus oo halis ku ah caafimaadka beerka fadlan sii sheer garee muuqaalkan si asxaabtaada kale u faa'iidaystaan waana Dr. Maxamed Qaasim Cabdulle Maracade.